السلام عليكم. sawirkan hortiina ka muuqda kaliya waxaa ka jawaabi doona dadka caqliga leh oo kaliya haddaba haddii aad fahamtid comment ku soo qor wiilkaas yarka ma waxaa soo tuuray ninka taagan number 1 mise ninka taagan number 2 sidoo kale waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa daawadayaasha sarafta leh oo mar walba muuqaaladeeda like gareeya comment gareeya sidoo kale channelkeygana sarakac aad u balaaran ku sameeyay waxaad u jeedin sawirkeedii muuqda 22 video kaliya inaan ku gaarnay 22,000 subscribe muuqaalkan hadda daawanis muuqaalkiisu ku xogan waxaan rajeynayaa insha Allah 30,000 mar ay ka badan inaan soo gelino sidoo kale daawadayaasha sarafta leh waxay mar walba iga codsadaan in فيلم oo kaliya aan u soo tabin ee filimka intaan sarxaadii bilaabay ka hor aan wada galno challenge-gii aan wada gali jirnay challenge-gaas oo ah waxaan ku tusi doonaa clip haddii aad clipkaas ku qosashid waxa kugu waajib ah inaad muuqaalka like saartid haddii aad qosli weysid ikhtiyaarka adiga iska leh ama waa iska dhaafi kartaa ama waa ii saari kartaa mahadsanid ساكرة شمس أبو ليلى بصلف بلد قال أنت أردو أبا ترتاو ده أردو سابع قال يفير سودا دي هذه أنا كجعل لكن نفتي أنا مسؤول كأه ميان اسجب شام ما أنا لوحة ما أذا لوحة مياه قتلة مياه قريبة نفتي أنا كأه مسؤول أنا وكجعل لكن قرطاته نو قاسي قوميسي هي sidoo kale haddii aad ka heshid filmaanta sidaan oo kale loo soo koobo xasniyada kaaga codsanaya inaad muuqaalka like saartid channelkana subscribe saartid waxaa laga yaabaa agtaada inay ka fudud tahay laakiin aniga agteeda waxay ka tahay hadiyad qaali oo dhankaada iga timid aad iyo aad ayaan ugu farxayaa mahadsanid maanta waxaan rabaa inaan sharaxo film xiiso badan oo lagu magacaabo Girl in the Basement filimka magaciisa waa Girl in the Basement filimkaas oo laga sameeyay qiso ama taariikh dhab ah oo run u dhacday kuna dhacday gabadhan hortiina ka muuqata filimkan ayaa filaantii film aad iyo aad u yaab sidoo kale aad u xiiso badan filimka sharxayd sidaan gudu galno filimka wuxuu ku bilaabanayaa jilaayada Sara iyo aabaheed Don oo Maria oo la carray isbitaalka sababtoo waxaa dhib ku ah neefsashada oo naqaska ayaa ku dhagan Sara waxay bilowday argagax markii ay Maria joojisay neefsashada waxay ku boorisay Don inuu si degdeg ah u kaxeeyo gaariga markay isbitaalka gaareen Don waxa uu si gaar ah u farayaa Sara inay iska aamusto oo ay ku jirto isbitaalka shaqaalaha gurmadka degdega si ay u caawiyaan Maria waxa ay siiyeen oksijiinta oo waxay isku dayayaan inay nolosheeda badbaadiyaan sheekadu waxay dib ugu noqotay 20 sano ka hor goob casho ah oo u muuqata mid aan fiicnayn Sara iyo walaasheed Amy ayaa la casheynay waalidka Don iyo Irene dareenkii miiska cashada ayaa si lama filaan isku bedelay markii Sara aabaheed uu muujiyay xanaaq xad dhaaf ah kaasoo aan u ogolay inay tagto xafladaha wuxuuna u muujiyay boqornimadiisa qoyska habeenkii Sara waxay si qarsoodi ah u raacday saaxiibkeed Chris waalidkeed ayaa markii dambe ogaaday inay maqan tahay qolkeeduna uu faaruq yahay aabaheedna wuxuu arrinta ku tilmaamay inay dhibaato ku tahay Sara xafladda waxay kula bashaalaysay oo isla ciyaarayeen Chris wuxuuna markii dambe u qaaday hees oo gaar ah oo u qoray iyada waxay isku muujinayeen jacaylka isku qabaan Sara waxay subaxdii timid guriga Donna habeenkii oo dhan ayuu sugayay iyada way dagaalameen oo buuqeen Sara waxay u sheegtay in marka ay 18 jirsato ay guriga ka tagi doonto Sara waxay hooyadeed iyo walaasheed kala hadlaysaa qorshaheeda ah inay u safarto dalka oo dhan iyadoo ka shaqaynaysa sidii ay nafteeda u horumarin lahayd aabaheed ayaa maqlay sheekadii oo aaday qolka hoose halkaas oo uu ku soo bandhigay jiritaanka qol qarsoodi ah oo ka dambeeya shelfiga buugaagta 3 bilood kadib Sara ayaa qalin jabisay sheeko ay Sara la yeelatay hooyadeed ayaa la ogaaday in aabaheed uu waqti badan ku qaadan jiray qolka hoose ee guriga markii Irene ay ka baxday guriga Don wuxuu Sara ka codsaday in sanduuq la qaado oo la geeyo qolka hoose ee guriga laakiin Don wuxuu qiyaameynayay Sara oo wuxuu rabay inuu si babeena ku geeyo qolkii sirta ah ayuu soo geliyay isagoo u sheegay inay tahay meel bambooyinka looga dhunto oo uu sameeyay mulkiilihii hore guriga lahaa Don Sara wuu qiyaamay qolkii ayuuna ku xiray iyadoo argagaxsan ayay qeylisay waliba iyadoo gargaar dalbanaysa nasiib darro qofna ma maqli karo iyada maadaama qolku yahay mid aan shaqar lahayn hooyadeed oo ka walwalsan halka ay joogto ayaa maalintii afraad wacday booliska aabaheed ayaa soo booqday oo si qabow u sharaxay sababta afduubka laga bilaabo hadda waxay ku qasbanaan doontaa inay kasbato wax kasta oo ay hesho xitaa hawo nadiif ah intaanu ka tegin Don waxa uu ka faa'iideysanayaa Sara oo uu furxumeynaya booliska ayaa booqday qoyska laakiin wuxuu sheegay inay u badan tahay inuu aanbabaxay safar dheer oo ay qorsheynayeen inay dalka ku marto hooyadeed ma rumaysna in Sara ay weligeed guriga ka bixi doonto iyadoo aan macsalaamin gaar ahaan ka hor dhalashadeeda 18aad Sara hadda waa kaligeed iyadoo aad u baqays ayaa Sara dib u xasuusatay habeenkeedii ay la qaadatay Chris iyadoo ay maalmuhu sii socdaan Chris ayaa wuxuu yimid guriga balse Don been ayuu u sheegay Chris oo wuxuu
sheegay in qalajibinteeda kadib Saara ay la baxsatay wiil markii ay raayeen daris ahaayeen laguna magacaabay Steve. maalintii 21aad ee afduubka Saara waxay qolkaasi kula dabaaldegaysaa dhalashadeedii 18aad. aabaheedna wuxuu u keenay keeg iyo goncas oo hadiyad ah. waxay weydiisatay saacad wuxuuna u sheegay inay tahay inay wax u qabato si ay wax ugu qabto isagana. markay ku caasideen wuu garaacaa. u dhowaad 1 sano kadib markii la qafaashay waxaa la ogaaday inay uur leedahay Saara. hooshii ayaa qabatay iyadoo kaligeed ah ayaa waxay dhashay gabar la yiraahdo Maria. 4 sano kadib Saara mar kale ay uur yeelatay. laga yaabaa inay isweydiinayso qofka uureeya Saara iyadoo weliba qol ku xiran, laakiin dib ayaan ka ogaan doonaa la soco muuqaalka. Dawn wuxuu ku nool yahay nolol qarsoodi ah oo labanlaab ah. mid waa xaaskiisa Irene iyo gabadhiisa Amy, iyo mid kale oo ku nool qaybta hoose oo ah Saara iyo gabadheeda Maria. weli waxay ka walaacsan tahay halka ay joogto Saara. Irene waxay doonaysaa inay shaqaalayso dambibaare gaar ah, laakiin Dawn ayaa si adag u oranaya maya. Dawn wuxuu Saara iyo Maria hadiid ahaan ugu geenayaa TV. kadib Saara waxay dhashay ilmo labaad oo ah wiil lagu magacaabo Michael. habeenada kamid ah Saara waxay sheeko nololeedkeedii naxdinta lahayd ka dhigtay sheeko ay ugu sheekayso waqtiga jiifka carruurteeda. Chris ayaa soo baqday guriga mar kale isagoo weydiinaya Saara. walaasheed ka yar oo lagu magacaabo Amy ayaa u sheegtay runta. waxay ogaadeen in Dawn uu been u sheegay Chris. waxay ka sheekeynay siduu weligiis ugu xumaa una necbaa Saara. Amy waxay ka baqaysaa in Dawn uu dilay Saara iyadoo tixraacaysa shakhsiyadiisa iyo xanaaqiisa aad ka xun. si ay waqtiga isku dhaafiyaan Saara waxay carruurteedu abuurtaa tacabur malaawaal ah si ay uga caawiso inay iloobaan adduunka iyo nolosha bannaanka ka jirta. dhanka kale Dawn waxaa ku dhegin Amy iyo Irene beentii Chris u sheegay awgeed. dagaal aad u xun iyo caro ayaa ka dhex dhashay. Irene waxay ku qaylinaysaa inay sameyn doonto wax walba ay awoodo si ay u hesho gabadheeda. inta ay dagaalamayeen Dawn waxaa ka dhacay furihiisa oo wuxuu ku dul dhacay kursiga dushiisa. Amy waxay qaadatay furayaasha oo waxay aaday qolka hoose si ay u raadiso Saara. Dawn wuxuu helay iyada oo wuxuu ka codsaday inay dib ugu soo celiso furihiisa, laakiin way la dagaalantay. Amy way wareertay oo waxay ku eedeysay inuu sabab u ahaa wayitaanka Saara. sanado badan ayaa dhaafay. Saara waxay dhashay wiil kale oo u bixisay Thomas. si fiican oo degan Saara waxay ku qancisay waa beriga inay dibadda u saarto ilmaheeda saddexaad. waxay ka dhaadhicisay isaga oo u sharaxaysaa inaysan jirin meel ilmaha kale ka helo qolka oo aysan haysan waqti ay ku daryeesho. cunugii yaraa waxay soo dhigeen iridda guriga si ay u heshay Irene. cunugii yaraa isagoo ku dhex jira dambiisha ayaa waxay aragtay warqad u muuqata inay Saara u qortay. waxay ku qortay in kan yahay ilmaheeda oo ay doonayso inay koriso Irene. warqadda ayay ku sheegtay in iyadoo saaxiibkeed aanay haysan wax ay ku xanaaneeyaan ilmaha. dambiisha waxaa kaloo ku jira qoraal kale oo ay Saara ka codsatay caawimaad. nasiib darro Dawn ayaa noqday qofkii koowaad ee ogaaday warqadda. sanadaha soo socda ee maxaabiisnimada carruurta waxay yeesheen malaawaal aan caadi ahayn oo ballaarinaya sheekada hurdada ee hooyadood. iminka Saara waxay ku jirtay qolka hoose muddo 14 sano ah. Maria way kortay waxayna noqotay gabadh yar oo qurux badan. hal habeen ayay isku dayday inay isqurxiso, laakiin Dawn ayaa u muujiyay xiisaha quruxdeeda. Saara waxay ka bariday Dawn inuu ka tago gabadheeda kaligeed. ma rabto in iyada wax loo geysto. taa beddelkeeda maraxadu waxay joojisay shaqadeedii xakameynaysa hawada nadiifka ah. Maria waxay muujisay walaaceeda ku saabsan in aanay weligeed cidna la kulmin oo aanay saaxiibo dhan lahayn. wadahadalka oo dhan waxaa ku ogaanay in Maria aysan wax fikrad ah ka haysan in Dawn uu u yahay awoowe iyo aabe labadaba. macnaha qofka Saara uu tagayay waa isla aabaheed, bal ka waran aabe gabadhiis uureynaya soo layaab maahan. a'uudu billaahi min shaytaani rajiim. hadda waxaan ogaanay qofka warka u yeeli jiray Saara inuu ahaa iyada aabaheed. hadda Thomas wuu koray wuxuuna arkay ayeeyadii oo ku dhex ooyeyso qolka jiifka ee hooyadii. Irene waxay u xiistay gabadheeda waxayna kala hadashaa Thomas sida quruxda badan ee Saara oo la dhaqmi jirtay. isla mar ahaanta waxaan aragnaa in qolka hoose ay soo galayaan dhibcaha roobka ay ka soo daaya saqafka sare. Saara waxay kor u fuulaysaa si ay u ogaato meesha roobka soo deynayso iyadoo adeegsanayso malqacad. hore ayayna u sii qaday iyadoo halkaas ay ka ifinayso toosh. nin deriska ayaa ogaaday oo u sheegay Dawn halkii uu asiga ka hubin lahaa. kadib Dawn wuxuu garaacay Saara oo uur leh mar kale. garaaca ayaa sababay in ay weydo ilmaheeda, waxayna la ilmeynaysaa xanuunka, waxayna dhashay ilmo meyd ah. Dawn wuxuu ilmaha ku aasay deerka. kadib Dawn wuxuu tegay qolka hoose wuuna ka cawday arrinta. markii Maria iyo Michael ay weydiiyeen goorta loo saari doono adduunka dibaddiisa, Dawn wuxuu arrintu ku eedeeyay Saara habdhaqankeeda xun inay tahay sababta ay halkaas uga xaniban yihiin. carruurteeda ayaa ku cadaadiyeen su'aalahan dhammaadka lahayn ee ku saabsan noloshooda. Saara intii aad u xanaaqday ayay qaylisay oo kala firdhisay dhammaan alaabtoodii. iyadoo daalan ayay dhulka ku dhacday iyadoo weliba xasuusanaysa waqtigeedii ugu farxadda badnaa ee ay la qaadatay Chris. carruurteedii busta ayay u geliyeen gurigoodiina way nadiifinayaan. waxay
waxay ka raalgeliyeen dareenkeeda Sarah waxay u sheegtay inay da'dooda ka weyn tahay inay maqlaan sheekada dhabta ee ka dambaysa noloshooda afduubka. Ilaa hadda waxay u haystaan in Dawn uu dabaqa sare kula nool yahay eedadood Irene si ay uga caawiso daryeelka Thomas. Waxay u sheegtay wax kasta oo ka bilaabma xaqiiqada noloshooda. Si tartiib ah ayay ugu sharaxday in Dawn uu yahay iyada aabaheed sidoo kalena uu yahay iyaga aabahood. Waa wareey bal gabadha muuqaalka daawanaysa ka waran isla aabaha hadduu ilmo ka dhalo soo warar ma isla markii ay Maria ogaatay runta xanuunka badan waxa qabtay xanuun daran. Caruurtu hadda waxay dareemayaan inay wax ka qaldan yihiin. Sarah waxay u xaqiijisay inay jeceshahay iyaga. Waxay kaloon u sheegtay in Dawn uu yahay qof kaliya ee eeda lagu eedeynayo waxaanu dhanna ka dambeeyay. Sanad kadib dhacdo kale ayaa dhex martay Dawn iyo Michael kadib markii Dawn uu aflagaaday Sarah iyo muuqaalkeeda. Dawn waxa uu dhibaato kala kulmaya shaqada isla markiiba waxa uu waayay shaqadiisii isagoo wajahaya xaalad aad u adag. Dawn wuxuu isku dayayaa inuu dilo oo ku caburiyo qoyska qolka hoose. Waxa uu gaariga qiiqiisa u marinayaa hawmareenka si ay u neef qabatoomaan laakiin waxaa si lama filaan garaash ku soo galay Thomas wuxuuna badbaadiyay qoyskiisa naftooda asigoon ogeyn. Muuqaalkiiga Dawn iyo qoyskiisa ayaa daaradda ku qaadanaya baashaal iyo madadaalo. Maria ayaa xanuunsatay waxayna ku dhibaatoonaysaa inay neefsato. Dawn wuu diiday in Maria uu qaado isbitaalka. Sarah ayaa ka baryaysay inuu caawiyo. Waxay ballan ku qaaday in aanay waxba sheegi doonin. Nasiib wanaag Dawn wuu aqbalay. Michaelna waxaa looga tagay qolkii. 20 sano oo maxbiis ayaa ka soo wareegtay waxaana hadda joognaa bilowgii filimka markii Maria loola cararayay isbitaalka. Sarah aad ayay u walwalsan tahay nolosha Maria waxayna dareemaysaa nafis dhab ah marka dhakhtarka badbaadiyay nolosheeda. Marka kalkaalisada ay weydiiso taariikh caafimaad oo dheeriya waxay u sheegeen in Maria ay guriga ku jiri jirtay waxa kaliya oo lagu daweyn jiray ay ahaayeen daaweyn dabiici ah. Sarah ayaa si tartiib ah u baaraysa isbitaalka iyada oo raadinaysa meel ay ka baxdo balse waxay u egtahay mid daalan oo weyday. Sarah waxay samaysay isku day lagu baxsan karo oo waxay ku daadisay biyaha foomka caafimaadka waxayna nasar caadisay Dawn. Ilbiriqsi kahor inta aanu Dawn u imaan Sarah waxay gaartay kalkaalisada iyadoo qiranaysa inay u baahan tahay caawimaad. Sarkaal boolis ayaa ka soo daba orday Dawn oo booliska ayaa xiray gacanta ayaana lagu dhigay. Sarah waxay Maria u sheegtay inay nabad yihiin sidoo kalena ay xor yihiin. Guriga waxaa ka soo buuxsamay boolis sidoo kale waxay banaanka u soo saareen Michael. Irene iyo Thomas aad bay uga xumaadeen markay arkeen Michael oo naqas ku dhigan markii ay booliska ka soo saarayeen qolka hoose. Dawn wuxuu wax walba ka arkayaa xagga dambe ee baabuurka booliska. Kadib maalin kale oo qurux badan Maria, Thomas iyo Michael ayaa ku ciyaaray miyiga halka Sarah, Irene iyo Amy ay ka daawanayaan balbalada guriga. Maria waxay aragtay qof ka soo socda wadada waaba Chris wuxuu ku yimid mooto uu watay. Waxay israaceen Sarah socod ayayna bilaabeen. Wuxuu ka xumaaday in aanu isku dayin inuu raadi iyada rumaysashada qisada aabaheed awgeed. Wuxuu hadiyad ahaan u siiyay koofiyadda mootada taas oo uu soo iibiyay iyada oo 18 jir ah markii ay qorsheynayeen inay safar galaan. Ugu dambeyntii iyagoo wada faraxsan ayay fuuleen mootada ay muddo dheer sugayeen. Muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ka yahay. Runtii filimkan waa filim sameeyay qisa dhaba waxayna ku dhacday gabar sax ah. Waliis muuqaalka bilowgiisa aad ku soo aragtay sawirkeeda. waxaan rajeynayaa insha Allah muuqaalkan ka heshin fadlan haddii aad ka heshay loogin inaad like saartid channelkan subscribe saartid mahadsanid. Body, 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 body.